السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين كسر هذا القناة كان فضل هدي أنا وعصوت سبسكرايب إنه هتهر إنه الجوكتنا لايك تيشرت وحقينا runtii aad ayaa usoo dhaweynaya asxaabteena nagu cusub asxaabteen hore nool joogteen waxaan dhahaynaa guriga waa gurigeeni maasha Allah si wacan usii share gareeya maasha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala faa'iidada ay u leedahay nasnuujinta hooyada iyo dhalaanka fast waxaa ku hormareynaa tan dhalaanka cunuga hadii aad maxay hayto markii la dhalo ilaa ay 6 bilood aad si wanaagsan u siiso naaska oo kaliya adigoon waxba kale uga barxeenin waxa weeye maasha Allah waxyaabo fara badan ayuu cunuga siinayaa koow difaaca cunuga ayuu kor u qaadayaa afwan difaaca cunuga ayuu sare u qaadayaa oo antibodies ayaa ku jirta caanaha hooyada sidoo kale wuxuu ka badbaadinayaa ear infection ama infectionka ku dhaca dhagaha maxaa yeelay ilmaha masaasada markii la siiyo markii u shaqeeya masaasada iyo naaska hooyada isku mid ma aha masaasada waxa macquul ah ilmaha inay ku rido xanuunka ama infectionka dhagaha ku dhaca sidoo kale wuxuu ka badbaadinayaa infectionka ku dhaca sidoo kale caloosha ilmaha yar calooshoodu waa mid aad u daciif ah maxay hayto jilicsan ma awoodo marka caano kale inay maxay hayto qaadato caanaha hooyada oo kaliya ayuu Allah ugu talagalay ilaa 6 bilood ilmaha ay ka gaarayaan oo kaliya inaad siiso maxaa yeelay infectionna kaaga dhici maayo burkiinta kaaga dhici mayso infectionka dhagahana kaaga dhici maayo difaaciisa cunuga kor ayuu u qaadmayaa oo maasha Allah naaska hooyada antibodies fara badan ayaa ku jira waa waxyaabo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku dheeli tiray maaha wax bini aadan soo qasqasay marka maxay ahayd faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu ka badbaadinayaa maxay ahayd xanuuno fara badan oo cunuga soo wajihi lahay markii la siiyo caanaha ama caanaha caadiga ah gasaacadaha yaryar ku jiro ilmaha la siiyo way ka xanuun badan yihiin isbitaalada iyo meel walba waxa taagan waa ilmaha yaryar masaasadaha inta badan la siiyo jiradu Ilaahay keeno waa mid gooni ah laakiin inta badan waxaa loo sababeeyaa caanayowgan loogu dardarayo ilmaha marka hooyo adigana faa'iido ay ku tahay weight gain ma noqonaysid hooyooyinka ilmaha siiyo caanaha waxa macquul ah maxay hayto weight gain inay noqoto waxaana sababaya borotiinkii oo ilmaheeda la qaybsan lahaa kaligeed ayuu qaas ku ahaanayaa maadaama ilmaha ay siinayso caano marka adigana siyaadan u naqanin hooyo buuran oo obesity ah ilmahaadan oo u naqin ilma xanuun far badan maalin walba isbitaal aad la taagan tahay si ilmahaada 6 bilood ay ugu horeyso maxay tahay naaska oo kaliya wax biyana ha siinin wax aana kalaana ha siinin afwan marka hooyadana faa'iidaas ay u leeyahay oo xitaa hooyada inta ilmaheeda nuujinayso uur ma qaadayso faa'iido kale oo leedahay waxa waaye weight gain hooyada noqomaysa obesity hooyo waxay noqonaysaa jirkeeda qurux badan yahay waayo borotiinkii ay cuntay waxaa la qaybsanaya ilmaheedana wuxuu noqonayaa ilmo caafimaad qaba maasha Allah firfircoon xag maskax iyo xag jirba maasha Allah ka korsan caato waxba ka dhimayso haduu dad baa caato waayo caata lagu noqonayaa ku dhahaya caatadu waa caafimaad ay leedahay wax ka wanaagsan ma jirto burnaan cudur leh ayaa ugu daran marka hooyo ilmahaada siiso naaska oo kaliya 6 bilood ay ugu horeyso si maxay quruxdaada adiga iyo quruxda babygaadaba maxay ahayd maasha Allah u noqoto iyo caafimaadka ilmahaada wax walba waxa ka muhiimsan caafimaadka ilmahaada marka hooyo siiya ilmaha 6 months ugu horeeya naaska oo kaliya